Waxaa maanta sheekadan ay ka soo waramaysaa tuulo ka tirsan gobolka Virginia. Tuulada waxaa degnaa bulsho yar, qof walba qofka kala caawiyo, iyadoo loo eegin heerka bulsho ee qof kasta. Tuuladan waa tuulo yar oo ku faanto guryo qurux badan iyo dhul beereed barwaaqo ah. Waa bulsho dhaqankeeda oo qoto dheer yahay. Waxaa aasaasay Herguura asal ahaan Ingiriis ah, kadibna dagaalkii sokeeye ayaa dad badan iska iibiyeen dhulalkoodii. daawade haddii weli janalka subscribe ii dhihin waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii dhahdo janalka laagtan aad ii saarto mahadsanidin. subax axad ah xagaaga sanadka 2009 sarkaal boolis ah ayaa ku jiray kormeerkiisii maalinlaha. intuu howsha uu ku jira ayaa lagu wargeliyey inuu hubiyo guri ay degan tahay Jill Smith oo 60 jir ah. waa haweeney uu sarkaalka si fiican u yaqaanay, waayo waxay xubin ka ahayd golaha magaalada. markii uu sarkaalka albaabka garaacay dhowr jeer, Jill ma aysan furin. isla markiiba markii uu isku dayay inuu ka eego muraayadda albaabka, wuxuu arkay Jill oo dhulka jiifta. daqiiqado gudahood ayaa booliska goobta ku hareereeyeen. baare ka tirsan xafiiska degmada markii ay gudaha u galeen guriga waxay dareemeen ur xun, taasoo micnaheedu ahaa in Jill dhimatay muddo dheer ka hor. si kastaba ahaatee, maalmo badan ma jirin caddeyn muujinaysa sida ay u dhimatay. waxa kaliya oo muuqda ayaa ahaa dhiig yar oo madaxa ka yimid, balse ma jirin calaamado muujinaya in la garaacay. marka hore baarayaashu waxay u maleynayeen in Jill wadno istaag ay u dhimatay, gaar ahaan iyadoo albaabka gurigeeda aysan jirin calaamado muujinaya in la jabsaday. guriga wuxuu ahaa mid si fiican loo habeeyey, wax walba waxay ahaayeen nadiif marka laga reebo hal shay oo booliska indhahooda qabtay: xirmo oo waxyo caag ah oo yaalay agagaarka meydka. waxaa la yaab ku noqotay booliska, maxaa yeelay Jill waxay caan ku ahayd jaceylka dhirta iyo ubaxa dabiiciga ah. taas micnaheeda ubaxyada macmalka maysan jeclayn. waxa kale oo soo jiitay dareenka booliska ayaa ahaa in uu ahaa xagaag kulul, aan la shidin qaboojiyaha guriga. haddana su'aashu waxay noqotay, ma geeri dabiici ah ayaa Jill ku dhimatay mise waa la dilay? markii la xaqiijiyey dhimashadeeda, jawigu wuxuu noqday mid murugo leh. Jill waxay ahayd qof caan ka ah magaalada. intii meedkeeda laga saarayo guriga, dadka intiisa badan waxay u qaateen in wadno istaag ay u dhimatay, laakiin arrintu waxay noqotay mid aan caadi ahayn. waxayna dad badan bilaabeen inay shaki ka muujiyaan in waxa dhacay aysan ku koobnayn arrin caafimaad. markii warbixinta dhakhtarka meydka la helay, sarkaalka iyo baarayaasha kiiskan ayaa noqday kuwii ugu horeeyay ee ogaada xaqiiqda naxdinta leh. sababta dhabta ah ee dhimashada Jill waxay ahayd xabad hal mar madaxa looga dhuftay. rasaastu waxay ka gashay dhinaca midig ee madaxa, agagaarka dhegta, iyadoo ku jirtay xagal hoose. xabaddu waxay dhex martay maskaxda balse kamay bixin, waxayna burburisay gudaha oo dhan. dhakhaatiirtu waxay soo saareen xabadda, balse rasaasta ayaa aad u dhaawacneed, taasoo ka dhigtay mid adag in la ogaado qoriga laga riday. sida dhakhaatiirta meydka sheegeen, rasaastu waxaa laga riday meel aad ugu dhow, xitaa foolka qoriga ayaa taabtay madaxeeda. booliska ayaa wacay tiim walaalka Jill si ay ugu sheegaan in walaashiis la dilay. inkastuu uu qabay dhibaatooyin caafimaad iyo curyaannimo, haddana tiim wuxuu waday gaarigiisa muddo 3 saacadood ah si uu ugu yimaado tuuladiisa una yimaado tuuladan si uu ula hadlo booliska. tiim wuxuu sheegay in walaashiis ay xiriir wanaagsan la lahayd qof walba. taasi waxay adkeysay in la helo liis ay ku jiraan tuhunsanayaal. dilka wuxuu dhacay dhowr maalmood ka hor sanad guuradii ugu horeysay ee Jill lagu doortay xubin golaha magaalada. dad badan ayaana isweydiiyey, ma suurtagalba in xilkeeda siyaasadeed ee magaaladan yar u keenay, mise waxay ogaatay sir aysan dadka qaar rabin inay ogaato. baarayaashu waxay isku dayeen inay helaan jawaabta. si kastaba, dilkan wuxuu meesha ka saaray kalsoonidii iyo amnigii magaalada. dadkii deegaanka waxay noqdeen kuwo cabsi dareemaya. boolisku waxay wareysteen dad badan oo ay ku jiraan xubno kale oo golaha magaalada ka tirsan, si loo ogaado haddii cadow ay ku lahayd golaha ama dibadda golaha. laakiin waxa ay sheegeen inay ahayd qof la jecel yahay oo la ixtiraamo, isla markaana xiriir fiican la lahayd xubnaha kale. baarayaashu waxay go'aansadeen inay wareystaan qof kasta oo magaalada ku nool ilaa ay ka helayaan dilaaga. mid ka mid ah dariskeeda ayaa sheegay in 2 jeer uu arkay baabuur cad oo taagan hortooda. ninkii dariska ahaa wuxuu intaasi ku daray in darawalkii gaariga cad uu albaabka u soo garaacay, asagoona ku andacoonayo inuu ka tirsan yahay shirkad dhismo oo agagaarka ka shaqeynaya, isla markaana uu doonayo inuu lacag dheeraad ah ku kasbado asagoona guryaha nadiifinayo. kiiska ayaa baarayaasha u horseeday goob dhismo oo u dhow si ay u raadiyaan baabuur cad.
waxaa la ogaaday in milkiilaha baabuurka uu yahay Randall oo 40 jir ah, kaasoo asxaabtiisa ku tilmaameen qof xumaan iyo xanaaq badan, ayaa maqan tan iyo markii dhibanuhu dilka ku dhacay. Baarayaashu waxay isweydiinayeen haddii Randall uu si qarsoodi ah u galay guriga jeel asagoo u sheegaya inuu adeeg nadiifin ah uu bixiyo. Baarayaashu waxay ogaadeen in Randall uu ku nool yahay tuulada Charleston oo 32 kiiloomitir u jirta tuuladan. Waxaa suurtagal ah in falka dilka uu halkaasi ka bilaabmay maadaama uu yahay tuulada uu tuunsanaha koowaad ku nool yahay. Markii la helay ninkaasi ma uusan diidin inuu yaqaano jeel. Wuxuu sheegay in toddobaad ka hor uu u soo bandhigay inuu gurigeeda nadiifiyo. Sidoo kale wuxuu sheegay inuusan wax xiriir ah la lahayn dilka. Ilaa iyo hadda baarayaashu ma aysan helin wax sabab u ah in ninkan uu dilka geystay. Baarayaashu waxay go'aansadeen inay si qoto dheer u baaraan nolosha dhibanaha. Baarayaashu waxay heleen wicitaan ka yimid qareenka Jill. Arrintu ma khuseen golaha magaalada balse waxay ahayd arrin sharci ah. Waxaa jirtay kiis maxkamad oo ka socday degmada oo la xiriira mas'uuliyadda hantida aabahood, kaasoo lahaa hanti qiimaheedu uu gaarayo $3 milyan. Tani ma aysan ku farxin walaalaheed, laakiin maadaama ay ahayd ilaalinta hantidaas, waxay lahayd awood buuxda oo ku saabsan hantidooda. Si loo ogaado haddii muran ku saabsan hantida uu ahaa sababta dhiigga loo daadiyay, baarayaashu waxay si dhow ugu fiirsadeen nolosha walaalkeed Tim. Waxaa la helay qaar ka mid ah xogta la yaabka leh. Tim wuxuu lahaa rikoodh dambiyeed kaasoo aanan lahayn mid rabshad leh. Wuxuu lahaa rikoodh aad u dheer laakiin eedayn toos ah looma geysan karin. Waxaa yeelay ma lahayn baabuur cad, caafimaadkiisuna ma ahayn mid wanaagsan. Qiyaastii 2 toddobaad kadib dhimashadii Jill, tuulada ayaa iskugu timid si ay u xasuusato Jill. Waxaa ka qayb galay xubno badan oo golaha magaalada, booliiska, asxaabta iyo deriskeeda. Inkastoo Tim uu guriga joogay si uu u daryeelo hooyadiis, baarayaashu waxay ogaadeen in si kiiskan loo xaliyo loo baahan yahay qof leh sabab, taasoo micnaheedu yahay in si qoto dheer loo eego nolosheeda gaarka ah. Baarayaashu waxay soo ogaadeen inay lahayd nin hore ee isqabeen kaasoo lahaa baabuur cad. Booliisku waxay soo ogaadeen meesha ninkeedii hore uu ku nool yahay, waxaana loo gudbay gurigiisa si loo baaro haddii ay jiraan dhibaatooyin ku saabsan xiriirkooda. Kiiskani wuxuu ahaa mid weyn, wargeysyada ayaana faafiyey, waxaana maalin kasta lagu darayay faahfaahin cusub. Markii dambe baarayaashu waxaa soo wacay xarunta booliiska nin kaasoo maqlay kiiska wuxuuna rabay inuu bixiyo macluumaad. Shardiga ku xirnaa ayaa ahaa in la caawiyo inuu helo ciqaab ka fudud dhibaatooyinka kale ee dembiyada. Intii baaritaanka socday wuxuu magacaabay qof caan ah, Tim, walaalka dhibanaha. Wuxuuna sheegay inuu ku noolaa guriga Tim sanad ka hor dilka xagaaga 2008. Wuxuu intaasi ku daray in Tim uu ka codsaday inuu ka caawiyo dilka walaashiis, isagoona ballan qaaday $2,000 si loogu adeegsado sun mas, sida in la mariyo gacanta albaabka guriga ama albaabka gaariga, taasoo sababi karta wadne istaag. Laakiin wuxuu sheegay inuu iska diiday qorshahaas, inkastoo aysan jirin caddeyn xaqiijinaysa hadalka ninkaasi. Haddana iyadoo lagu saleynayo hadalka ninka soo wacay booliiska, Tim waxaa lagu eedeeyay kicin iyo ku lug lahaansho qorshaha dilka. Tim ayaa laga qabtay gurigiisa kadibna loo qaaday xarunta booliiska. Wuxuuna sheegay inuu yahay kaliya dhibane, isagoona ku andacoonayo oo ninkaasi ka been abuurtay si uu u helo ciqaab fudud oo dembiyada kale ah. Tim waxaa lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah, laakiin kiiska kuma dhammaan halkaasi. Inkastoo qorshaha dilka uu fulin, baarayaasha ayaa diiradda saaray Tim iyo dhammaan dadka uu yaqaanay. Waxaa la baaray taleefanadiisa. 2 sano kadib, Agoosto 2012, Tim ayaa ka baxay xabsiga. Xaaladdu waxay sii socotay sidii ay ahayd iyadoo la helin caddeyn cusub. Kadib 3 sano iyo bar, nin la saaxiib ah Tim ayaa wacay booliiska wuxuuna sheegay in Tim uu qirtay inuu dilay walaashiis oo qorsheynayo inuu dilo sidoo kale walaashiis kale. Laakiin hadalkiisa ayaa ahaa mid aan caddeyn ahayn sababo la xiriirta macluumaad la'aan. Markii la gaaray Maars 2013, markii baarayaashu ogaadeen in Ashley ay kala tageen Tony oo xiriirkoodu dhammaaday, waxay arkeen inaysan jirin sabab ay u difaaci lahayd Tony. Sidaas darteed, booliiska ayaa wacay Ashley si loogu wareysto baaritaanka. Intii lagu guda jiray wareysiga ayaa lagu cadaadiyay inay qirato waxa ay ka ogeyd dilka. Ugu dambeyn, Ashley waxay qiratay in Tim oo Tony siiyay $2,000 si uu u fuliyo qorshaha dilka. Tony si toos ah ayuu u qirtay falka dilka markii la xiray, wuxuuna sheegay in markii uu albaabka furay, Jill toogtay.
Tony wuxuu sheegay in Jill ka baryeysay inuusan dilin laakiin ma uusan ka laaban in uu dilo. Tony waxaa lagu xukumay 25 sano oo xabsi ah. Tim waxaa lagu xukumay 23 sano oo xabsi ah ku lug lahaanshaha qorshaha iyo kicinta dilka. Dibina waxaa lagu xukumay 8 sano oo xabsi ah oo ku saabsan marag furka been abuurka iyo carqaladeynta nidaamka garsoorka. Xukunkaani waxay ka farxisay dadka magaalada oo muddo dheer sugayay in dambiilaha la geliyo xabsiga.